waxaan daawadayaal soo gaarnay qaybaha dambe ee barnaamijka su'aasha kale ayaa waxa ay tahay assalaamu calaykum sheekh magacaygu waa Jawaahir ninkayga ayaan kaga shakiyay inuu hasaawo la sameeyo dumar kale waxaana inta badan u diraa gabar aynu saaxiibanahay si aan u xaqiijiyo in hasaawadaasi ninka uu isaga diyaar u yahay iyo in kale kadibna waxa ay sheegtaa wixii dhexmaray ogaashaha sirtaasi iyo arrinkaasi aan suubiyay dambi ma iga soo gaaray sheekh jazakallahu khayr alxamdulillah nacamha adiga midda dirtay laba dambiilayaal baatiin sharcigu marka koowaad wuxuu xaraantinimeeyay qofka muslimka in la daba galo la baarbaaro sabab la'aan tanna sabab sharci ma ilaahay wuxuu wala tajassasu hasjaasusina waxa kale oo nabiga alayhi salaatu wasalaam ya ma'shara man amana bilisani ولم يدخل الإيمان في قلوبهم تذكرن أفكا إسلامين قلبك إسلام كوسو دادقينو لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم حملنا مسلمين عيبه هذه سرته ذنا هدبا قلقلين قفك مسلم كا وحا لغا ربا هدو سر walaalkii leeyahay ogaado inuu qariyo aduu qof inaad daba dhigto oo daba socoto isna kaaga shaqeeyo oo sir isu soo gudbisaan qofkuna ninka dee xaq u qabo sharcigu talabaad inuu guursada kama xaraantinimeyn inuu qof dumara la sheekaysto guur kala sheekaysta waa xalaal u banaan wixii rabbi u baneeyay in lagu tajassuso la daba galo waan baari la yiraahdo ma banaana ilaahina waa u baneeyay marka labaadna dadka muslimiinta in la daba galo la fiirfiiriyo ma banaana nabi xasan maalin buu wuxuu arkay nin gurigiisa ag maray oo daaqada ka soo fiirinaya intuu waran qaatay buu la daba socday markaasuu ninka dhaqaaqay wuxuu yidhi si taagna leed ishan kaaga dhufan lahaa guriga dadka yaa baadho isha geli ku yiri guriga marka ay imanaysa xaafada hoodi ma soo galaa dheh baa la yiri sabab dadka ceebahooda inaadan taalaacin iyo awraadkooda weeyay asraartooda ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام انما الحديث بالمجالس انما المجالس بالامانه ما ردي له فريست مجلسku aamin afkan waa su'aamin wixii ay caadi tahay oo kugu sheeg iyo qari oo ku yiraahdo kawdhi hadii uu meel gaar ah gacanta intuu qabta gaar kula baxa laba dhe haduu markuu ku sheekeenay hareeraha iska fiiriyo wax ku sheeg hadii warkan oo kale war banaan la dhigo uusan ahayn inta uma banaan ila sheegto marka qofkan aad meesha cilada u tago gaar ula hadalo sir ka dhigo kadib soo sheeg leedahay laba aadimiin baatiin misad xana gabar inaan ku dhahan rabaa ninka rag haday go'aansadaan inay guursadaan war baa laga soo sheegay way dhiiri gelisay wixii daahil ahaa bay dadajisay ninka ragga amaba ka hor istaagtaba waxay sababi kartaa arintaas waad ku qabsan ka ku qabsatana uu ogaan isaga horta tiisa joojisi way ciloobayaan yadii isagana khilaaf baa idin ka bilaaban khilaafka waxa dhici karta furiin iyo guur kale inuu ku dambeeyo oo waxaad ka cararaysay baad soo dadajisaa dhici karta wabillahi tawfiiq jazakallahu